taliyaasha ciidamada booliska iyo daraawiishta gudoomiyaasha maxkamadaha maxkamadda ciidanka iyo maxkamadda racfaanka iyo maxkamadda rajada koobaad ee degmada Gaalkacyo maayirka degmada saraakiisha kale ee shirka fadhida amniga bahda saxaafadda dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaanu shirkeena amniga ayaynu maantay halkan ugu qabsoomay alxamdulillah shirku wuxuu ku saabsanaa arrimaha amniga xalay ciidanka amnigu waxay galeen howlgal ay kula dagaalamayeen argagixisadii oo wada kala furatay oo markii qaraxii iyo baskooladii iyo waxa ay dadka ku dhibi jireen iyo canshuur ka qaadkii iyo telefoonka iyo mushkiladoodii iyo mobile furashadii iyo la soo xaliyay hadda khamradii u guuray oo iyagu khamrada wadanka keena oo cabtayda maalgeliya oo ka shaqeeya fawdada una fahmay halkaas meel ayaan ku sii noolaan karaa inay tahay xalay ciidanku howlgal wuxuu ka galay xerada kabka magaalada Gaalkacyo halkaas waxaa ka dhacay khasaaro nimankiina way baxsadeen cabtayda ahaa waana lagu raad joogay waa la soo qabanayaa hal askari ayaa ku dhintay oo booliisa Allah u naxariisto howlgal qiimo badan buu ku dhintay isagoo munkar suurinaya ayuu askarigaas ku dhintay ilaahay jannah uga rajaynaynaa qoyskiisii iyo ciidanka booliska iyo dawladda Puntland waxaan ilaahay uga rajaynaynaa sabir iyo iimaan askarigaas magaciisa waxaa loo oran jiray Muxyidiin Cabdi Jaamac sheekeeye naxariista Allah siiyo in dhalinyaro ah oo sarkaal dhalinyaro ah askari ah oo shaqeeya oo booliis oo ahaa howlgal wanaagsan ku dhintay waana la daba socdaa ciidankii ilaa ay xuduudda Itoobiya sii galeen ciidanka ka daba maray nimanka qayb kamid ah halkaas ay u carareen waana xoojinaynaa howlgalkaas oo hadda ka hor ciidan baan u sameynay waana wadnaayo waa ka nadiifinayna argagixisada qaybta kale nagu sii waarimayaan ilaahay dantiis annaga iyo argagixis hadba inay shaar gashanayso hadba koor soo bedelanayso waa ognahay marka dadweynahana waxaan u sheegaynaa dagaalka argagixisada qaybtii koobaad baa dhamaatay qaybta labaad oo ay fuuleen khamrada soo fuuleen oo ay alkoolistayaasha iyo khamrka ganacsiga ay ku soo biireen inaad qaybtiina ka qaadataan baa la rabaa maalintii kaasi dhamaadana mid kale ay soo fuulaan wadanka haddaan laga nadiifin waayimayaan ama qabiil ha soo fuuleen ama khamraha soo fuuleen ama meel kale ha yimaadeen argagixisadu oo waxaasan alla aqoono maafiyada ahoo maafiyadu maalinba meel bay dadka ka soo gashaa qodobka labaad wuxuu ahaa oo shirkeena maanta lagu soo qaatay arrinta dhulka oo dhibaato badan ka timid waxaan sameynay bishii saddexaad ee sanadka bilowgiisii ahayd guddiga xalinta khilaafaadka oo akhyaar ah guddigaas waxaan u sheegaynaa dadweynaha waa guddi dawli ah oo xukunkoodu uu xukun dawladeed yahay oo dadka dhulka inay ku kala saaraan aan u xulay oo isugu jira looyaro culimadiin iyo injineero iyo odayaal dhaqan ah isugu jira oo dadkii ashraaftiisii ahayd qayb kamid ah oo aan u xulay dhulka in ummadda kala saaraan shaqo fiican bay qabteen dhulkii in badan baa laga nastay ciladaa ciladihii yimid qayb waa ka ballanay waxaa la rabaa in horta lala shaqeeyo dadweynuhu xukunkooda ay ogaadaan inuu yahay xukun dawladeed oo aan soo noqosho lahayn waxyaalihii iyaga ay tabahayeen qaybo kamidana iyaga iyo waxaanu isla xiriirinay maxkamadda gobolka iyo qaybta booliska oo hogaamiyo muumin baanu isku xiray waxyaalihii noocaas ahaa iyo dadkii ay xukumeen xukunka qaadan waayay iyo kuwa maartay fal khaldan galay iyo waxaasoo dhan waxaan u daynay iyaga iyo booliska isu daynay qayb waxaa jirta dhibaatada dhulka jirta oo dhan iyo xaalufinta deegaanka oo dhan kowka ah waa niman kale cagafley maanta waxaan ka qaadanay go'aan iyagii baa mushkilad noqday number 1 horta cagafta oo dhan waxaa la rabaa inay isdiiwaan geliyaan oo dawladda hoose wax cagaf wadanka ay iska diiwaan geliyaan xafiiska dawladda hoose baris wax laga bilaabo waxa cagaf wata inay tagaan oo iska diiwaan geliyaan labo cagaflihii lagu qabto isaga oo aan warqad qofku dhulka u jeexayo uusan warqadii dhulka dawladda hoose wadan waxaa la isugu darayaa ganaax cagafta la ganaaxo oo lacageed isagoo la xiro iyo 6 bilood shaqada laga fariisay cagaftaas oo ayaan dalka mar dambe ka shaqeynaynin cagafta arinta lagu qabto cagaftii waxay noqotay mushkilad
waxay noqotay waxa ugu daran oo dhulkii ka shaqaysa oo aan la xallin karaynin oo maalin walba meeshii la istaagaba dhulka iyagu qodaya oo meeshii ay soo xalliyeen oo ay soo kala saareen dadkii ilayaashii wixii lagu kala saaray xataa burburiya marka cagaflayaalow dhagaysta maanta laga bilaabo cagaf aan register dowladda hoose ka ahayn horta cagaf maaha kow qof aan warqadii dhuljeexa dowladda hoose ka wadan uma dhaqaaqi kartaan cagaftii u dhaqaaqda waxaa la isugu darayaa ninka cagafta wato dareebalka ka ah waa la xirayaa cagaftana waa la xaraynayaa qaybta booliiska lagu xaraynayaa 6 biloodna ma shaqaynayso ganax lacageedna waa lagu dhufanayaa intaas ninkii warqadda ayaro booliiska iyo registrationka ka xiga intaa ninkii qaadan waaya hadda isaga yaqaan meesha ka shaqaynayo gobolka mudug kama shaqaynayo wixii waxa ka shaqeeya waa fidmo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa bahda saxaafadda oo qiimaha badan oo gobolkan muddadii waqtiga adag ahayd sida adag uga soo shaqeeyey qiimahana badan aad baan idinku mahadcelinaynaa hadda waxaa laydinka rabaa wacyigelinta iyo barnaamijyada iyo dadka dhexgalkiisa iyo ciidamada ka warqabkiisa iyo inaad qaadataan qayb door oo wanaagsan baa dalka ku leedihiin haddaad dabcada waxayna halaysaan cid ka xoog badana ma jirto haddaad dabcada waxayna hagaajisaan cid ka wanaagsan ma jirto laakiin annagu hadda sharaf baan idin haynaa saxaafadda gobolka mudug gabi ahaanba dad aad u wanaagsan oo shaqo fiican haya weeye marka maalintiina iyo shahaadooyinkiina iyo sharfidiina waa idiin soo socotaa waan idiin ogsoona waxaad qabateen muddada adkeyd aad iyo aad baa u mahadsantihiin mudan gudoomiyaha ka bixin hal su'aal baan rabaa weydiiyo goobtan xalay fal ka dhacay waxa jiray hadda ka hor xilli u dagaal ka dhacay dowladda ciidamada u qorshaysay deganaan jiray maxaa looga rabaa gudoomiyaha ciidamadaasi waxay ahaayeen ciidamo ku aadanaa xilli kooban aan ugu talagalay xilligii odayaal baa loo saaray iyo guddi inta dhulka la xalinayo oo dadka iyo dhulka dad baa dhulka gatay dadkii dhulkiisa lagu wareejinayo bay ku koobnaayeen marka hore waqti badan hadda uma baahna meeshaan ciidamo la dejiyey iyo saldhig baana dowladdu ka samayso la rabaa in mar dhow laga dhiso marka uma baahna ciidamo la dejiyey iyo xaalad weyn waa cabtoy inta meel guriga galay wax ku fuuqsaday oo qoryahooda kusoo urursaday weeye waxaa lala dirirayaa ma aha wax hadda u baahan in sidii waagi hore oo kale marxaladaasi ma jirto gudoomiye waxaa jirta howlgallo dhowr jeer aad ka samayseen xerada kabidda oo aad ka samayseen nimankaasi cabtooyda ah dhowr jeerna way kusoo noqnoqdeen haddaba howlgalkii xalay makii ugu dambeeyey buu noqonayaa may howlgal horta sidiisaba kan u dambeeya ma noqdo oo adduunku inta uu jiro cabtooyna waa jiraya sharwadana waa jiraya annaguna intaan shaqaynayno sharka inaan la dagaalanaa naga go-an marka howlgalku sideedaba howlgal ma joogsado dowlad waxa ay wax ku haysaa amni lagu qabtaa in operation ku socdo marka howlgalkaas kii u dambeeyay noqon mayo waa la wadayaa meeshii wax lagu arkaba ama cabtooy ha noqoto ama wax kaloo fidmo ka shaqaynaya ha noqdee ciidamadu habeen iyo maalin waxay u taagan yihiin inay howlgalka wadaan istiraatiijiyad ciidan gudoomiye ma u samayseen aagaas aad oo weyn waa u samaynay waana loo diyaarsan yahay waxaanan istiraatiijiyad ka lahayn oo khariban ma jiraan waa noo qoran tahay qodob bay noo qoran tahay habeen walbana mid baan suulinaa